قبيلة أورون إسوتنا إن أنت رايون قبيلة أورون إسوتنا تلفوا بينو لو تايدين محاتقا تلفوا بينو لو تايدين محاتقا سوية ويان لو تسالي محاتقا سوية ويان لو تسالي محاتقا لو تسميا محاتقا. بسم الله الرحمن الرحيم. barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wanaajinta xidhiidhka aad dadka la leedahay si ay kuugu sahasho inaad shaqo hesho. waa wanaajinta xidhiidhka waxaanu qayb ka yahay taxanaheennii ahaa sida shaqo loo helaa. waxa soomaalidu inta badan ay odhan jirtay ama ay tidhaahdaa oo hees soomaaliyeedna tidhaahdaa ayaa taqaan maaha waa maxaa taqaan. laakiinse xaqiiqda jirta waxay tahay iyadoo maxaa taqaan ay tahay xaqiiqda ugu dambaysa haddana haddaanad ayaa taqaan aanay jirin way kugu adkaanaysaa inaad shaqo hesho. ayaa taqaanto maaha untii musuq maasuqa ahayduun ama eexashada ama garabka ama qaraabakiilka. laakiinse ayaa taqaan kalaa jirta oo ah cid ma taqaanaa kuu sahasha inaad shaqo hesho. marka waa muhiim inaad wanaajiso xidhiidhka dadka gaar ahaan kuu sahlaya inaad shaqo hesho. marka ayaa taqaan waa muhiim waxaanay muhiim u tahay sida ay muhiim u tahay maxaa taqaan. maxaa taqaan keligeed kuguma filla haddaad shaqo doonta. ayaa taqaan laftigeeda raadi. haddaba balan dhowr qodob soo qaadanno oo kaa caawinaya ayaa taqaan. markaa balan dhowr qodob soo qaadanno oo kuu sahlaya. marka hore haddaad tahay arday ama qof ka soo baxay jaamacad ama qof ka soo baxay maxad ama qof ka soo baxay dugsi farsamo kuu doona ha noqdo, waxaa muhiima inaad homeworkgaaga ka soo shaqayso oo aad isweydiiso horta meelahan aad rabto inaad u shaqayso ama xirfadahan aad rabto inaad ku shaqaysa waa kuwee. inteena badani waxyaalahaasi dee kamaynu soo shaqayno inagoo nolosha dhex soconnuun baynu aragno inagoo meeluun shaqo ka helay. laakiinse waa muhiim inaad isweydiiso waa meelaha aad jeclaan lahayd inaad ka shaqaysaa ama xirfadan aad baratay ama tacliintan aad baratay ay ku habboontahay inaad kaga shaqaysaa. waa muhiim inaad ka shaqayso. qalin iyo buug qaado bal hadda qor. waxaad tidhaahdaa tacliintan aan bartay ama aqoontan aan bartay waxay ku habboontahay wasaarad hiblaayo ama shirkadda noocaasa ama ganacsiga noocaasa ama wax soo saarka noocaasa ama dadka brifatka ee waxyaalaha noocaasa ka shaqeeya ama ka ganacsada waxyaalahaasi ku fiicnaan lahayd. ilaan intaad wax soo baratay oo aad aqoon intaa wakhti ku soo lumisay damaad lumina aqoon wakhti badan ku gelisay uun intaad soo baxday oo dhammayso garan maayo wixii nasiibku isiiyo nasiibku waa halkiisa. laakiinse bal hadda waxaad qortaa 5 meelood oo aad jeclaan lahayd inaad ka shaqayso oo de ku habboon aqoontaada iyo tacliinta aad soo baratay. 5taa meelood intaad qaaddo qalin iyo buug qor. waxaad tidhahdaa wasaarad hiblaayo way ku fiicnaan lahayd inaan kaga shaqeeyo tacliintayda. waxaad tidhahdaa shirkad hiblaayo way ku fiicnaan lahayd inaan tacliintayda kaga shaqeeyo. waxaad tidhaahdaa ganacsiga sidaas iyo sidaas warshadaha noocaas iyo noocaas way ku fiicnaan lahayd inaan kaga shaqeeyo. shirkadda caynkaa iyo caynkaasee daaraha dhista ee qandaraasyada kontraatka qaadata way ku fiicnaan lahayd inay bal horta soo dhadhowee kumelihii way sahlanta. waxaa laga yaabaa inay iskaga kaa yaacdo markaan ku idhaahdo waxaa soo qor waad garanba weydo tira horta waxaan xaggeen kaga shaqeeya. laakiin isku day haddana sidaad maalinba in yar u wadwaddo marka dambe 5 meelood soo koob. marka dambe waxaad isweydiisaa dadka nooceeya iyo shirkadahan iyo wasaaradahan iyo hay-adahani halkee laga helaa. dadka nooceeyaana ayaana warkooda haya ama ka shaqeeya ama u dhadhow. keligaha isweydiina dee dad kaloo asxaabtaada weydii. 5tan shirkadood ama 5kan hay-adood ama 5tan wasaaradood ee aad soo qortay waxaad isweydiisaa dadka xidhiidhka la leh halka laga helayo iyo kuwa ay yihiin iyo nooca ay yihiin. haddii aad caafimaad soo baratay ama aad soo baratay fayadhowrka ama aad soo baratay caafimaadka guud ee dadka public healthka waxa loo yaqaan ama aad dhakhtarnimo soo baratay iyo dawada medicineka waxa loo yaqaan dee warqadii buuqaada waxaa tiraa dadkan halkee laga helaa ama dadka xidhiidhkan lala samayn karo halkee laga helaa. waa wasaaradda caafimaadka waa wakaaladaha dawooyinka soo dejiya
waa dowladaha hoose ee qaabilsan faayadhowrka iyo nadaafadda waa meelaha de horta qoro bal meelahan aad ka rabto shaqada haska dhex soconin horenu joornaalku wuxuu soo qoruun baan eegayaa iyo bal hadda telefishinku inuu wax sheego sidaa ku socon mayso arrimaha qor waxaad isku daydaa markaa dadka ama go-aankaa leh meelaha aad shaqada ka rabto go-aankeeda leh ama xidhiidhka wanaagsan la leh ama arrimahaasoo dhan halka laga helo si aad ama ugu tagto ama ugula kulanto ama aad cid kuu sahashay inaad la kulanto aad u hesho inteena badan mushkiladda koowaadayna haysataa waxay tahay dhallinyarada rag iyo dumarba jaamacad ka soo baxday ama wax soo baratay intoodan shaqada la-uunbaa wada socsocota oo habeenkii ama makhaayad wada fadhiisata ama xidhiir ku wada hadasha whatsapp ama facebook ku kulanta dee intiinana waxba isma dhaantaan haddaad intiinanu wada sheekaysataan intiinanun isdaba socotaan kumelihii kala hadha oo intiina lafteedu dee war baad isku soo kordhinaysaa laakiinse wakhtigaaga geli dadka shaqada aad rabto haya ama xidhiidhkaa wanaagsan kuu samayn kara halka ay joogaan iyo halka laga helayo sidaad u gaadhi lahayd marka bal meeshaa doono adduunyada kale dee waxay nagaga duwan tahay waxaa jira carwooyin la sameeyo oo ay iskugu yimaadaan dadka doonaya inay shaqaale helaan iyo dadka doonaya inay shaqo helaan oo marka ay kulmaan jaamacadaha inta badanna barnaamijkaa qabta arday sidana soo baxday qolo IT-ga taqaan qolo caafimaadka taqaan qolo injineerada taqaan warshadaha dhista qolo xanaanada xoolaha taqaan qolo beeraha taqaan qolo ganacsiga taqaana qolo suuqgeynta taqaana markaasay dadkii loo shaqayn lahaana yimaadaan markaasay eegaan dhallinyaradan iyo waxay ku hadlayaan iyo bal waxay soo bandhigayaan halkaasay markaa ka doortaan dhallinyaradii ay shaqada la rabeen dhallinyaraduna ay ka aragtaa dadkii loo shaqayn lahaayo halkaa joogo markaasay dee la isweydaarsadaa ra'yi laakiin innaga dalkeenna inta badan barnaamijyada noocaasi ilaa hadda weli may hirgelin laakiin waxaan hubaa inay hirgeli doonaan haddaba dadkii doono barnaamijyadan xidhiidhkan kuu samayn lahaa ama aad la kulmi lahayd halkay joogaan waxaa laga helaa meelaha seminaarada lagu qabto waxaa laga helaa meelaha tababarada lagu qabto waxaa laga helaa meelaha wasaaradaha meel kaloo ay ku kulmaan baa laga yaabaa inay jiraan dadka xidhiidh la yeelo ha isku duba meeraysanina uun afartiina shaqada la ee jaamacadda ka soo wada baxay ee 24 saacadood wada hadlaya haddii kale way ku adkaanaysaa dee inaad la kulantaan dadka marka aad la kulanto dadka ama kuwa ay rajadu ku jirto inaad shaqo ka hesho ama kuwa kuu sahlaya inay shaqo kuu tilmaamaan ee aad kulantaan ha u muuqanin qof shaqo doonayo dadka isku dhadhajinaya qofna ma raba in culays la sameeyo haddaynu maanta kulanno oo aan kula kulmo dee haddaan u ekaado qof shaqo doonayo oo marabooba oo isku dhajinayo qofka oo maaragtay qof kasta haddii uu ka ordayo qofku ma raba in culays la saaro adigu imika waxaad u baahan tahay macluumaad information halkay shaqo taallo iyo sida loo heliyo wax la mid a laakiin iya kaa muuqan inaad tahay qofka isku dhadhajinaya oo wakhtiga ka qaadaya qofka la sheekayso si caadi oo la sheekayso sida keliyaad ku soo saari kartaana waxay tahay sheeko yaroo wanaagsan oo qofku xiise gelinayso ku soo yaro dar sheekadaada sheekadaasi weliba waa inay hadday doonto u badataa sheeko qofkan aad la hadlayso khusaysa ama shirkan aad la hadlayso khusaysa ama wasaaradda yani waxaad odhan kartaa beri dhexdii oon magaalo hiblaayo soo maray waxaan arkay mashruucaad ka hirgeliseen oo caynkaas iyo caynkaas oo aad u hagaagsan markaasaan weliba maalin iyo laba la joogay dhallinyaradii ka shaqaynaysay ama dadkii ka shaqaynayey ama dadkii ka faa'iiday shaqadii aad qabateen markaasay xiise gelisay sidaas uga yaro sheekeen dadku waxay jecel yihiin in laga hadlo wax iyaga khuseeya oo wanaagsan oo laga sheego ma jeclo qofka isagu iska sheekeeya beri baan sidaa u soo shaqeeyo beri kalena halkan aan ka soo shaqeeyo shaqo wanaagsan baan soo qabtay caynkan qofku ma jecla inaad adigu iska hadasho wax qofkan aad la hadlayso xiise geliye ka hadal waxaad ka hadashaa barnaamij xitaa haddaanu ahayn barnaamij isaga toos u khuseeya qofkan ama iyada toos u khuseeya barnaamij qofkan xiise geliya waxaad odhan kartaa barnaamijkii ololihii nadaafadda ee laga bilaabay dowladda hoose ka bilowday magaalo hiblaayo hadduu yahay qof dowladda hoose ka socda ayaan arkayo sida uu hirgalayo dhalinyaro badan baan arkayo markii dambe ololihii iyaguba iskoodu sii wadayo iskuullo badan baan arkayo barnaamijkii sida u sii wado oo waa barnaamij qofkan khuseeya oo aan adiga uun ku khuseyn haddaad adiga isla hadasho dadku kuma jeclaanayaan markaa sheeko yar halkaa kusoo dar talabaad mar kasta ood qof la hadlayso aad isleedahay ama rajo aad ka qabto inuu shaqo kaa wasteeyo ama aad rajo ka qabto inuu yahayba qof wax shaqaalaysiinaya haysu tusa inaad keligaa un shaqo rabto haddii markaba ay wejigaa ka muuqato inaad qof shaqo doonato qofka isku dhadhajinaya way xumaanaysa laakiin isu muuji qof macluumaad raba
oo macluumaadkaasi maaragtay ka faa'iidaysanaya. qofkana markaad in yar wada hadashaan haddaad kulantaan ha isku sii dhejinna ka baxa in wanaagsan kaga baxa. qofku ra'yi fiican buu kaa qaadanaya haddaad in yaroo wanaagsan tidhaahdo, macluumaad yaroo wanaagsan ka qaadato, aad halkaa kaga baxdo. xitaa haddii aad online qofka ku kulantaan, xoog ha iskugu dhedhejinoo shaqadoon baan ahay oo hebel igala hadalo ama heblaayo kale igala hadalo, wasaaradda cid ma ka taqaanaa ma igala hadli kartaa, taayay noqon baryootan bay noqonaysa. haddii aad qofka ku kulantaan meel ama seminaar ama meel kale ama shir amaba meel uun de ilaahay isaga kiin hol saaro oo laskiin baro ood ku kulantaan oo aad kala tagtaan, de kulley haddaad telefoon nambarkiisa ka qaadato qofkaasi ama aad ka qaadato emailkiisa, waad mahadsantahay u qor maalin dambe. waan ku faraxsanay maalinta inaynu kulannay, intii yar wada hadalkii yaraaynu yeelanay wax badan buu iga anfacay oo maaragtay durbe maaragtay xaggaygii sidii hawshayda ama macluumaadkii aad siisay aad buu ii anfacay. xataa hadduu macluumaadka qofkaasi ku siiyey uu ahaa macluumaad yaroo kooban, u mahadna qofku dee wax weyn buu dareemayaa oo inaad qiimaysay buu dareemayaa. u mahadna qofka, mahadnaq u jeediyo waxaad tidhahda macluumaadku iigu filaa. haddii masalan qofka maalinta aad la kulantay uu qof kale kuu tilmaamay oo ku yidhi wallahi halkaasaaba shaqadan aad rabta iyo farsamadan aad soo baratay iyo xirfaddan aad soo baratay halkaasaa lagaga shaqeeyay, ama qof hebel tag qofkaasaa ku fiicanoo malaha ku tilmaami doona ama sidaa iyo sidaa, ood qof hebelkii u tagto ama qof heblaayadii u tagto, qofkii ku soo tilmaamay maalinta dambe farriin mahadnaq oo tago waxay tidhahdaa hebel waanu is aragnayoo tilmaamtii aad siisay waan ka faa'iidayoo si wanaagsan buu ii qaabilayoo. xataa haddii wax badan aanu ku qaabilina in yara iska ahay qofka tilmaam, qofku wuxuu doonaya inaad qiimayso. waxaan jecelahay haddaan qofku u tilmaamo inaad maalinta dambe mahadnaqdo tidhaahdo maaragtay qofkii aad ii tilmaamtay si wanaagsan buu ii soo dhaweeyeyoo ama war wanaagsan baan ka helayoo. dadku way jecel yihiin qofka positive-ka ah, qofka dhinaca maaragtay wanaagsan wax ka eega. marka farriintaa yaraad soo qudbisay tidhi maaragtay waan ku faraxsanahay qofkii aad ii tilmaamtay si fiican buu ii qaabilay iyo wax la mid ah, runtii wax weyn bay noqonaysaa, waa lagugu qiimaynaya. waxaa jira meelo lagu kulmo, waxaa jira shirar, waxaa jira seminaaro, waxaa jira meelo kaleoo lagu kulmo oo lagaga hadlaya xirfadda aad soo bartay, hadday xanaanada xoolaha tahay, hadday tahay wax kale, hadday tahay sida warshadaha loo dhiso, hadday tahay suuqgeynta badeecadda beeraha ka soo baxda, meelo lagaga hadlo ama shirar saasaa jira. isku day inaad ka qayb gasho shirarka oo aad ogaato meelaha shirarka noocaasi ka dhacaan iyo dadka haya iyo sida ay yihiin, oo isku day inaad shirarka ka qayb gasho. iskuna day inaad muxaadaro ama warqad ka jeediso paper waxa loo yaqaano shirarka noocaasa, si ilaan dadka meesha iskugu yimid waa dadkii farsamadaada yaqaanay, si hadhow marka laga hadlayo laiskaa weydiinaya la idhahdo waa gabadhii maalintii hadalka ka jeedisa shirkii caynka ahaa, ama waa wiilkii warqadda caynkaasa, ama maaragtay researchka noocaasa, ama maaragtay cilmi baadhista noocaasa ka jeediya shirkii noocaha. meelaha dadka xirfadaada ku shaqada leh ay iskugu yimaadaan ama ku shiraan, ka hadal oo warqad ka jeedi oo wax ka dheh, ama su-aalo ka soo jeedi fiicanoo dee aan ahayn su-aalo xujo ahe, su-aalo la xusuusto oo la yidhahdo waa qofkii sidaa iyo sidaas ahaaye shirka maalintii ka hadlay ee warqadda sidaasa ka jeediyey maaragtay si lagu xusuusto jeedi. waxaa kaloo muhiima joornaalada ama websaydyada wax ku soo qor. dee ha soo qorin intan yara siyaasadda ee dadka la caayayo ama dadka la dhaleecaynayo ama taageerada indhaala qof la taageerayo maaha. wax farsamadaada ku saabsan soo qor oo ha lagaa barto warbaahinta iyo websaydyada ama joornaalada, oo wax haddaad soo baratay sharciga, arrimo sharciga ku saabsan soo qor. arrimo sharciga markaa waxaad soo qortaa wax dee theory aad soo tarjuntay oon ha soo qorin oon cidiba fahmayn, laakiin wax khuseeya nolosha dadka oo markaa la odhan karo aad isku dabaqayso wixii aad baratay iyo wax nolosha khuseeya soo qor, si markaa lagu barto oo aad haddii ay websaytya jiraan ama ay jiraan joornaallo soo qora xirfadda aad baratay, ama qaanuunka ha noqoto ama beera ha noqoto ama dhisme ha noqoto ama suuqgeyn ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama maamul ha noqoto ama hogaaminta ha noqoto, websaytyada lagaaga barto ood wax ku soo qorto oo markaa maaragtay laiskaa weydiiyo marka dee magacaagu soo baxo, dee cidi ku xayaro xasuusato walaa qofkii articalkii maaragtay maqaalkii sida ahaa soo qoray ama cilmi baadhistii noocaha soo qoray, ama waa qofkii warbixinta ka soo qoray intuu tuulo heblaayo tagay arrinta caafimaad
biyaha wasakhaysan ee carruurta siday shubanka ugu ridaan ka soo qoray waa in wax lagaa yidhahda wax soo qor xidhiidh dadka la samee oo ka bax xaydaankan yar ee qolqoljoogga aad ku wareegaysay afartiinan istaqaana aad isku daba meeraysanaysaan haddii aanad sidaa yeelin afar baagamuuddaad maalin kasta isku ag fadhiyaysaan ood sheekaysanaysaan afartiinana wax badan iskuma biirinaysaan waxaad waxoogaa waad isku biirinaysaan laakiin waxoogaagiina aad isku biirisaan kuguma filla ka bax oo meel kale maaragtay uga wareeg waxaan rajaynayaa inay qodobadaasi ku anfaceen sidii aad hore ugu marin lahayd xidhiidhka aad dadka aad la leedahay dad kuu sahli kara inaad shaqo hesho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.